KNN. kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay. waa khamiis ay taariikhdu ku beegan tahay 6 bisha Febraayo sanadka 2020. waa maalinta 7-aad ee sanadka, waxaana sanadkan ka harsan 329 cisho. dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii 2008 20 ruux ayaa ku geeriyootay, in ka badan 60 ruuxna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dadkaasi lala beegsaday 2 qarax oo isxigxigay xilli ay ku sugnaayeen meel u dhow dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaana ka soo jeeday qowmiyadda Oromada ee dalka Ethiopia. maanta oo kale sanadkii 1778 dowladda Britain ayaa waxay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Faransiiska. maanta oo kale sanadkii 1935 haweenka dalka Turkiga ayaa markii ugu horeysay loo ogolaaday inay codayn karaan. maanta oo kale sanadkii 1958 shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka magaalada Munich ayaa waxaa ku dhintay 21 ruux oo 8 kamid ah ay yihiin ciyaartoy u dheelayay kooxda Manchester United. maanta oo kale sanadkii 1979 maxkamadda sare ee Lahore ayaa xukun dil toogasho ku riday ra'iisul wasaarihii dalka Pakistan Premier Bhutto. ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii 2017 dalka Cameroon ayaa markii ugu horeysay 15 sano kadib ku guuleystay koobka qaramada qaaradda Afrika. xulka qaranka Cameroon ayaa waqtigaasi 2-1 kaga badiyay xulka qaranka Masaarida. guud ahaan dhageystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa iga intaas.